saaxiibteed inta u wacday ee waxay tiri walaalay waxaan rabaa ninkan guriga igu qor diiday intuu haaf igu qoro oo haafkiina sida aqli ah oo iiga naqsaday aan dareemin marka waxaan rabaa ay tiri sida guriga igu qoro in aan hal mar baleen isla maxay tahay baleenka waxay tahay tiri in gabadhiisoo dhimatay qabriga aan kala soo baxo aan ku rakaatayo iraada gabadhaada haddaa meydkeeda rabtid waa inaa igu qortaa baartimentada guriga haddaad igu qorine gabadhaada maalkaysid qisadan bal maxay ku bilaabatay waa ku dhamaatay aan wada dhegeysan insha allah nakaxeer asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maqli jiray damac katiir wallaahi damac katiirka aaday u dhib badan tahay yaqsar marateen marka qofka markuu damac badan yahay yaqsar marateen dheheen carabta laba joor oo khasaaraya marka qofka inay damac badnaanin ayaa roon oo ilaahay wuxuu ku siiyey aad fiirisid inaadan fiirin qofka kaa koreeyo inaadan fiirin qofka dhinacyada taagan aad fiirisid wixii adiga aad leedahay oo ku agyaal qofka kaa xoolo badan waxaa la yidhahdaa ilaahay ayaa siiyey allah u siyaadiyo annagana allah na siiyo ilaahay waa ku siina laakiin haddaad damacaaga tiraa ka waran qofkaan heerkaas soo gaari ana waa inaan gaaraa qofkaas soo ku helay waa inaan helaa qofkaas waxay haystaa say ku haysta waa inaan haystaa ma jirto ilaahay wuxuu ku siiyey ku samir oo alxamdulillah ku dheh ha kuu yaraado ha kuu badnaado intaada ilaahay kuu barakeeyo qisada maanta waxay tahay maanta idin wado gabar damac badan laakiin aqiirkii ay qasaartay iyadoo qasaaro walaa filis 0 idoo ayaa marka u dambeysa nolosheeda ay ku dhimatay way ku dhimatayba maxaa yeelay qofkan heerka ay taagantahay waxay tahay sideedaba gabadhan kuuba yaraanteeda markay kasoo baxday waxay kusoo baxday ayadoo xoolo jecel aad u xoolo jecleed waxayna fiiri jirtay dadka ka sarreeya say ku haystaan say ku haysi waay walaalkeed ayaana soo kori maxaa hooyadii aabeed mar hore geeriyoodeen waxay walaalkood ugu tageen labadoodii guriga iyo degan waana guri weyn waxay tiri anigu shaqo kuma lihi gurigan aniga adiga nin inaan kalna xataa ma yeelay bar noo kala jar barkaaga qaado barkaygan qaadana waxay yiri walaalay maada guursanin reer ma aadan yeelanin teed kalnin walba xaqiisu qaadana xaqaaga qaadana maxaa kaa qaldamaya waxay tiri ilaa ma jirto waa inaa siisaa insha allah khayr walaalkeed ninka iimaan badan waxaa soo raadsaday wiilkii wuxuu soo raadsaday inuu guursado way ogolaatay markay ogolaatay wixii lacag ku baxayay asaga ayada gabadhan asaga ayaa baxshay adiga markuu wixii la baxshay oo gabadhii la guuriyay ayuu wuxuu sameeyay gurigii uu gaday kaligiisa heri gurigii markuu gaday waxay iyada xaq u leedahay iyo wuxuu arooska kaga maamulay ayuu ka dhiibay waxay xaq u leedahay gacanta ka saaray lacagtiisa usoo hirtan waxay u noqotay baartimeento yar oo asagoo ku filan oo ku guursan karo nin shaqaysta waaye maadaama ay guursatay ilaahay ka astur alxamdulillah isagana wuu guursaday gabaruu doonta waa lasii wuu guursaday alxamdulillah waxay noqdeen laba qofood oo laba reer kala leh laakiin walaashii ma fadhinayso 24 saac ninkaas waxay ku haysaa qaxar iyo rafaad iyo ma isiin hadda ima siin goorma isii soo ugu haysay ninkan waa karaahsaday maxaa yeelay maanta dhan isii waxaa maqli jiray baryo badan iyo baahi badan bahdaa waa kugu nacdaa laannu maanta dhan qofka isii adaadataad oo xoogaaga iyo nafsadaada adan kuma cisin waana qof wax bartay saasay tahay waa gabar jaamica wax baratay ma rabta xataa inay shaqada aado laakiin ninkan xoogaa dhaqaalaha leh ee xisleeda dhaqaalaha ka rar ninkii marka dambe halkaas u timid wuxuu yiri may intaan ka bacdi kafaaya igu filan salaam ma yiri ani adiga ilmiilal noo yiri intaas igu ekay intaas haba iiga ekaataba sidii ayuu ku furay hadduu soo furay maxay noqonay walaalkeed markii waa la furay uu maqlay aad uu naxay maxaa yeelay uu ogahay kilifkeeda iyo dhibkeeda iyo silceed inuu dib ugu soo noqonay xaggee aadi guriga imaanay guriga u timid baartimentadii yaraa uu deganaa ayaa dib kusoo diray maalin walbo ayay waxay dagaal ula haysaa gabadha uu qabay weliba ay ugsii jiraysaa guriga walaalkay guriga maadaa leh guriga walaalkayba guriga hadday iyada lahayn iyada lagu qabaa laakiin adiga laguma qabo adiga marti leetahay ku xisaabtamayso waxay leedahay guriga walaalkay guriga walaalkaa iskale laakiin walaalka reer uu keensaday uu rabaa inuu ku dhaqdo reerkiis inaad dudumisid waa qalad ma ku jirto sidii rafaadka isku jireen walaalka wuxuu yiri
walaalay aniga adiga dhib aan isku qabnaa reerkayga inaad dudumisaarta adaa kaaga iska soo rartay aniga kayga ku dirin marka wuxuu sameeyey waa walaal iimaan leh wuxuu sameeyey wuxuu u kariyey qol yar iyo fadhigiisa alaabteedii oo garaashka ku jiro qol ugu jiro baqsin ah ayuu usoo qaaday oo u dhigay wuxuu yiri walaalay anaa mar walba kiradaas iyo korontada kaa bixinaa laakiin waxaad cuni lahayd iyo waxaad xero lahayd soo xamaalo shahaadaa wadataa bax shaqo aad haye shaqay aad marka dukaan waxay heshay oo supermarketka ay ka shaqaynaysay ayay waxay istiri ninka supermarketkaas iska leh ku dhegso ninkii waa fahmay wuxuu yiri may anigoo reeraan leeyahay reerkaygana waa ku qanacsanay marka gabadhii sanka iga soo galgalaysa iga jooji waxay tiri haye waa fahmaysan inay fahmay fahanto ka leexat waa ka wareejistay markay ka wareejisay ammaan siisay ayaa haddana waxay bilaawday guriga imaarada ay degan tahay dabaqa ay degan tahay ninka iska leh koruu ka degan yahay wuxuu leeyahay xaaskiisana ilmo ma aysan u dhalin laakiin waa nin awlaad raadinaya ninkii ayay waxay istiri amaa guursataa ninkii ayadoo sheekada saas ahayd ninkii xaaskiisii ayaa dhimatay markay dhimatay wuxuu yiri walaalay aniga haddaan aniga adiga kala tagno naagtan waxay i dhalin xataa waxaa jirto gabar aan dhalay oo xanuunsan gabadheeda waxay qabtaa kansal mar walbana cilaajkaa la geeyaa meesha cilaajkeed aadaa waa laga soo celiyaa marka walaalay guur waxaan u guursanaya haddaan guursanayn waa gabadheedii darteed waxay isku dayday gabadhii marka inay dhaqaaleyso gabadhii dabadoodo gabadhii ilaan qofkaan ninkaan yartaa ninkana marabtay dhaqaaliisa yartaa marka wuxuu isiri waaba hooyo ku habboon naxariis badane amaaba guursataaba ayadoo guur kusoo jeedi waaba intay raadinaysay way guursatay markay isguursadeen maanta isguursadeen isbuucii ugu horreeyaba waxay bilowday asaga intuu joogay wadadaa gabadhii markuu albaabka ka baxo gabadha hadday qaylinaysa xataa qolka ma u kacayso tvgeeda dheeraysata hay wareerinay taraa qayle in madax xanuun u baahnayn siday saas u ahayd ee u dhex joogtay ee u rafaasaneed ee waxbana u hayno nugtina ugu rafaasaneed ayaa waxaa dhacday maalinta maalmaha ka dhimid ah gabadhii ayadoo qaylinayso oo naf hayso oo biyo cadshaan dhayso ciduu ka cadaradaaya nafta kaga daysa aabiya yimid wuxuu arkay naagtaanoo tvga cirka u dhegsanoo gabadhiina ee jiiqba lahaynba soo baxay isagoo yaaban gabadhii u ilmasay gabadhiisi dhulkay taala waa mid sariirtay kasoo galgalatay waa dhimatay waa ooya qaylay oyna isku daray gabadhii waa la qaaday waa loo maxay ahayd toole dhakhtarkiyaa yimid waa la baaray waqtigeeda dhammaadaa liri gabadhaaneeti wayna dhimatay sidii gabadhii ku duugtay gabadhii markuu duugtay sideedaba gurigaan markuu soo guursanayana waxay tiri aniga maxaan ku guursan markay guursanayaba sharuuday kusoo gashay sharuudani wuxuu ku ogolaaday guriga aan degannahay tiri oo adiga gabadhaada aad degantihiin aniga maxaa qasraan u noqonaa nus iyo nusna adaa iskale nus waa ogolaaday marka hore asaga wuu ku qoriyay laakiin markuu arkay gabadhiisa macaamilka la macaamilayso iyo gabadhiisa u dhimatay go-aan wuxuu ka gaaray inuu gurigiisa nuska ahaa inuu soo noqsado laakiin se usoo ceshana waay wuxuu sameeyey waraaqo u keenay wuxuu yiri waxaa rabaa aniga adiga ilaa gabadha waa dhimatay misan waxaa rabaa maadaama aniga adi naqane inaan cimro wada aadno maxaa ka tiri weella waa jira waraaqadan saxiix marka abaahilay markay tvga ku maqan tahay musalsalka fursadada musalsalka jecele indha kale male warqadii soo hoos dhigi qalinkii u keenay ma aysan iska aqrinay qaraf ilaa wuxuu kasoo ceshunaya ninkan gurigii nuska uu siiyey oo kasoo ceshunaya ayadan maba ogaba see meeshan u fadhiday ayuu maalin dambeete waa yimid warqad usoo wada warqado miiska u saaray la qabso warqadan aqriso warqada hadee fiirisa mise furiinkeeda waa bal maxaa igu furtay waxaan kugu furay wiil gabadheeda inaan la macaamisho macaamil qurux badan iyadan ku guursaday ayadana dhulkay ku dhimatay ayadoo qaylinayso yaa ogaaday oona u qaylinayso u dhimatay deertee marka ma istaahishid aniga inaan guri kula qaybsado mise guri ay la qaybsatid marka sidaas i nabadgeli waa ku furay hortaada hore wahay way baxday iyadoo xanaaqsan oo qaylinayso waxay tiri marka ugu dambeys ma khasaareen guriga walaalkeeda usoo noqotay laakiin waxay tiri waa inaan lugooyaa ninkan si kula goynay gabar iyadoo kaloo shaydaamad ah inta wacatay ee waxay tiri walaalay ninkan marka ugu dambeys wuxuu u taagnaayay tiri yaqsar maratheen waay ya marka waxay tiri wax la-aan aan taagana ninkan waxaan rabaa tiri inaan gabadhiisii meydka ahayd
inaan ku rakaatay isay tala in raaci qabriga iyo raacaysa sidan gabadhiis inta ugu soo bixiyo meel kale aan ugu duubo hadhown markuu oon iraahdo gabadhaada daartid meedkeeda igu qor guriga iguna wareeji haddoo diidin maba haay gabarani marka gabadhiisa noloshuu ku jecelyahay indhihiisuu ku jecelyahay maxaa xale hayay tirtay shaydaamad ahayd labadooda habeen madow waa lasoo baxay qabrigaa la yimid gabadhaan saaxiibteed banaanka sugaa qabriga kale soo bixi tiri gabadha waa lama gabar yar ilmahan 6 jirka soo qaadi kartaa inkastoo meedka uu culus markay ay furtay qabriyadoodan sidii guri camal loo sameeyaa carabtan markay qabrigii ay furtay ay gashay qabriga ku xirmay albaabkiisii way qeydisay ka bacdan qaylo kale waa laga waayay ard isku taabatay gabadha saaxiibadeeda waxay soo wacday ninkii qabriyada waardiyeena haddii la yimid toosh la soo qaatay la ifiyey iyo wixii xaafadaha deganaa u dhawaa qabriyada haddii la furay mise qoftaan waaba meed iyadoo qaynaysa afka kala taagtay ayay ku dhimatay عقب حمي كل ما تمسترين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نينكي قبضاس دلي أي الله وعي لما لي قانا قبرك قبضان يرتدى شيء الله وعي حلري قف كان متقانا يا قبرك قبضان تكش قدمت مركع أيضا ما بلو أقاليه وحي سميسي لكن قصة الماستر محلو أقال سيسبو مركي ساحبتت لو وريست إيش سبحان الله بالقصة ما أنت سبقت إن شاء الله قصة لمدة waxaan kaga tagayaa caafimaad bash barwaaqo laakiin damac badan la joojiyo insha Allah waxaan leeyahay shirta iyo like subscribe kana iloobina haddaad nagu cusub tahay gambaleelka furo sidii qismo walba insha Allah ku soo gaarto. Assalaamu calaykum.